xaaladda qaxootiga Soomaalida ku nool xerada qaxootiga Al-Qaraza ayaa aad looga soo dayrinaya. Adayradani ayaa timi kadib markii ay halkaasi soo buux dhaafiyeen qaxooti Soomaaliyeed oo aad u tiro badan. hay'adii halkaasi ka shaqeynayayna isla mar ahaantaana ka hoos shaqeynayay hay'adda u qaabilsan qaxootiga adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ayaysan sidii loogu talagalay hay'adahani u shaqeyna. awaatan mid kamid ah ururka haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerada qaxootiga Al-Qaraza oo lagu magacaabo Afaaduma Maxamed. warqadaas oo kala hada tusaale kaaga dhigaya waxaan ka soo qaaday like 3 sida geedka kale. geedka markuu baxaayo roodka hoose wuxuu ka soo qaataa macdanta dhulka dhexda geedka wuxuu mariyaa macdanta refuge-gina waa caleenta sare oo ka aan kuugu dhigay. marka haddii qaxootiga halkaas uu yahay UNHCR waxay soo lufluftay ka soo qaada wadamada ay ka keento. haddii NGO-ya local staff ay u adeegsatay tiri hawsha ha ku fududeeyaan local staff-ka hadduusan si fiican wax u qaban qaxootiga wax u gudbaya malaha. sidoo kale waxaa ka hadlaya arintan dhibaatada Soomaalida ku haysata xerada qaxootiga Al-Qaraza mid kamid ah guddiga xerada qaxootiga Al-Qaraza ee magaciisa la yiraahdo Maxamed Cali. meel waa aan ku noolaan karin haweenka uur kale caruurta dadka da'da ah oo aad waayo xerooyinkan soo marnay sida Madiina Shacab Al-Kuud Jaxiin xawaalaha maanta ka qodan saddexdaas xero waxa ka badan ku 4 jibaar ma xeradan xawaalaha ka qodan. xaaladda nololeed ee Soomaalida ayaa ah mid aad u liidata. lama siiyo cunto ku filan isbitaalka meesha ku yaalana lagama bixiyo dawooyin tayo leh marka laga reebo qallajiye iyo xanuun joojiye. dadkan qaxootiga Soomaalida ah ayaa xaaladooda u eg mid la iska ilaaway oo aan jirin cid si dhaba wax uga qabata ama ka hadasha. in ka badan 15 sano ayay Soomaalideen halkani ay ku nool yihiin adeega ay hay'adahaasi uga baahan yihiin sidii loogu talagalay uma helaan. sababtuna waxa ay tahay ma jirto cid si dhaba u xisaabisa hay'adahani. xerada Al-Qaraza ayaa waxa ay ku taala gobolada koonfureed ee dalkan Yemen gaar ahaan gobolka Laxaja. jawiga xerada ayaa ah mid aad u kulula kumana arkaysid wax doog ah marka laga reebo meesha loo yaqaano kaamboonka oo ay degan yihiin hay'adaha iyo shaqaalahooda oo ay subax walba ku doogsadaan. dhanka kale magaalada tan Sanca ayaa waxa ka socda ijiid aan ku jiido oo u dhaxaysa hay'adaha ka hoos shaqeeya UNHCR taasoo lagu tartamayo mid walba sidii ay ku heli lahayd miisaaniyada sanadka 2012 oo loogu adeegayo qaxootiga Soomaaliyeed. hase yeeshee dadkii dhibanaa ee xanuunsanaa ee heli jiray kaalmada dhaqaale ayaa bilihii ugu dambeeyay aan wax behelin taasoo ay sababtay in xaaladooda nololeed iyo caafimaad ay khatar ku sugnaato. ilaa iyo haatan ma jirto cid si dhab ah uga hadashay xaaladda Soomaalida qaxootiga halkani ku ah gaar ahaan kuwa aadka u liita. haddaba yaa u maqan Soomaalidani halkani ku dhibaataysan oo iyagu noqday dadka ku dhex baaba'ay hay'adaha dhexdooda. isku soo wada duubo haddii ay xaaladda sidani ay ku sii socoto ayaa waxaa dhici karta in Soomaalidani ay soo wajahdo khatar ka badan tan hadda haysata. Maxamed Cali Juxa, telefishinka qaranka Soomaaliya, صنعاء، يمن.